daawo mucjiso aad u weyn oo maanta ka dhacday buurta Carafa korkeeda. Inta aanan muuqaalka dhamayn like saar siina share garay amar maahan ee waa codsi. Ha hilmaamin inaad ku salido nabiga sallallahu calayhi wasallam. Maalinka sagaalaad ee bisha Carafa buurtan oo ay isugu yimaadeen dhammaan xujayada daafaha caalamka. Dhammaan xujayadu hal meel ayay isugu imaanayaan hal waqti ayagoo hal dhar xiran. Sida la sheegay xujayadu awal waxay kor u dhaafi jireen 2 milyan oo xaaji. Laakiin sanadkan waxaa la sheegay dhammaan xujayadu inaysan ka badnayn 60,000 oo xaaji. Laakiin nin ka mid ah xujayadii buurta Carafa korkeeda ku sugnayd ayay mucjisadani ku dhacday. Subxaanallah, mar kale waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan sii faafiso. Xaajiga ay mucjisadani ku dhacday waxaa lagu magacaabaa Ahmed, waxa uuna u dhashay dalka Ciraaq. Xaajigan muddo 70 sano ah ayuu sugayay ilbiriqsiyadan, waana ilbiriqsiyada uu xajinayo. Markii uu yaraa, markii uu dhalinyarada ahaa iyo markii uu da'da noqdayba waxa uu sugayay xajka. Xaaji Ahmed waxa uu telefishinka ka arkay barnaamij ku nasiibsa ah oo lagu soo xajisiinayo qof walba oo qorituurka ku soo baxa. Qorituurka ayuuna ka qayb galay, ugu dambeynna waa la qaaday sanadii 2020. markii uu ogaaday in loo doortay oo uu ku guuleystay soo gudashada acmaasha xajka aad ayuu u farxay. waxa uu ku soo degay Xaaji Ahmed magaalada xabiibkeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam ee Madiina al-Munawwara. halkaas ayuuna ugu diyaar garoobayay gudashada acmaasha xajka. asagoo halkaas ku sugan ayuu dhulka ku dhacay daal dartiis, maxaa yeelay da'diisu waxay ahayd 73 sano umana uu adkeysan karin dhibaatada safarka. si degdeg ah ayaa magaalada Maka isbitaal ku yaala loogula cararay. baaritaan ay ku sameeyeen dhaqaatiirtu kadib waxa ay sheegeen inay dheefshiidkiisa ku arkeen buro halis ah, mar dhowna uu dhiman rabo cudurkan oo ku faafaya dartiis, ayna qasab tahay inuu hadda qaliin galo. Xaaji Ahmedna waa uu diiday inuu qaliin galo, waxa uu dalbaday in la geeyo xaramka si uu acmaasha xajka u sii wato. waxa uuna dalbaday in buurta naxariista ee buurta Carafa loo yaqaano la geeyo. mas-uuliyiinta xajka ayaana sheegay inaysan Ahmed u diidi karin dalabkiisa, ayna qasab tahay in loo fuliyo dalabkiisa intuusan dhiman ka hor. waa ay qaadeen Ahmed waxayna u safriyeen Jabal Rahma, waxayna mas-uuliyiintu Xaaji Ahmed u diyaariyeen baabuur gaar ah iyo adeegyo dhammaystiran. baabuur isbitaal camal ah oo adeegyadiisii oo dhan ay ku dhammaystiran yihiin. isbitaalka ayayna ka qaadeen, waxa ay u qaadeen dhankii acmaasha xajka, masaafo aad u dheer oo gaaraysa 550 kiiloomitir. kooxdii dhaqaatiirta ahayd Ahmed waxa ay geeyeen buurtii Carafo korkeeda. Ahmedna qalbigiisu waxa uu ku degayay oo uu iimaanka ku qabay buurtan oo kaliya. halkaas ayuuna Ilaahay uga baryay inuu Ilaahay uga badbaadiyo oo uga fakiyo cudurkan xun. asagoo Ilaahay isu duleynaya ayuuna aad u ooynayay oo u baryayay Ilaahay. kooxdii dhaqaatiirta ahaa ayaa Ahmed qaadeen. markii ugu horeysay ee buurta Carafo laga dejiyay ayuuna codkiisi caadi u soo baxay, xitaa awal codka ayaaba ku xirnaa. aad ayuuna ducada ula qaylinayay inuu Ilaahay ka caafiyo cudurkan. muddo 2 saacadood ah ayuuna ooynayay. kooxdii dhaqaatiirta ahaana dhinaciisa ayay joogeen, isla markaasna dhulka ayuu ku dhacay. dhammaan waa ay ka murugoodeen. kooxdii dhaqaatiirta ahaa ayaana ambalaasta kula carareen Ahmed. markaas dhakhtarkii ayaana dalbaday in si degdeg ah loo geeyo, maxaa yeelay adeegyada Ahmed kuma filna. baabuurkuna waa inuu 550 kiiloomitir jaraa si loogu laabto isbitaalkii. alxamdulillah, masaafadaas dheer kadib Ahmed waa la geeyey isbitaalkii asagoon dhiman. halkii bukaanjiifka ayaa la geliyey, dhakhtarkiina baaritaankiisa ayuu bilaabay si loo ogaado cudurkii meesha uu marayo. laakiin arrin la yaab leh oo aysan filayn ayay la kulmeen. dhammaan cudurkii xitaa raadkiisa waa ay ka waayeen cudur, sida weligiisba inuusan kansar ku dhicin. ugu yaraan 5 qof asxaabtaada ka mid ah u shargaray muuqaalka.